laakiin hadda meesha kama bilaabay waxaan ka bilaabayaa guud ahaan ilmo marka la dhalo maxaa laga rabaa waa shay wixii laga rabay ilmo fiican inuu noqdo waxay dadka aad tarbiyada uga shaqeeyaa ay isku raacsan yihiin inay noqdo ruuxii kaa dhaxli lahaa waxa aad jeceshahay in lagaa dhaxlo ilmihii dhaxli lahaa waaye yani madaxdaadii waaye ilmaha haddii si kale loo cabiro adiga waxaa weeye waa dhashay automatically cumrigaagii meel buu marayaa ruuxii madaxda beri kuu noqon lahaa waa maxay kan yar iyo gabadha yar iyo wiilkan yar waaye kuwaasaa marka madax ku ah ma ula dhaqanaa marka sida madaxda loola dhaqdo mise ulama dhaqano ma ulama dhaqano markii sheekh yar weyn iyo madaxweyne iyo prime minister yimaado si loo digdiglay waa aragteen soo maaha orodka dhacaya iyo xataa meelahay tegayaan waxaa la isku dayay in la bedelo oo la qurxiyo yaa la isku dayayaa sidaa ma ula dhaqanaa ilmaha innaga ma ulama dhaqano caadi markaan hadlayno sida mas-uuliyiinta la iskaga ilaaliyo yani ama dadkaad qadarinayso saama iskaga ilaalinaa mise iska hadalnaa iska hadalnaa waxaan ku hadlaynaa wax fiican oo raalli ka noqon karaan ama haddii ay qaataan aadu raalli ka noqonayso iyo wax aan loo fadhinin aad agtooda ku sheegi markaasay adiga waxaad qayb ka noqonaysaa marka say u dumi lahaayeen ama waxaad qayb ka noqonaysaa inaysan dhisin baad qayb ka noqonaysaa waa isku mid yani haddii intaad dhisa aad gadaal ka dumiso iyo bilow hor haddaadan dhisin uu si xun u dhismo ilmaha waa isku mid marka meeshaas waa meesha dhibta xoogga leh uu ka jiro duriyadda jacaylkeeda dadka dhan uu ka dhexeeyaa ambiyada ilaahay moogtahay markii ay dareemeen carruurta inay ku yartaa aan carruur lahayn rabbahu rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru waaritiin ilaahay tuugayaan ilaahu carruur isii waaye ilaahu carruur isii marka mas'ala dadka ka dhaxaysa waaye ambiyada ilaahay waa ilaahu isii la moogtahay ruux kastana marka inuu madhalays noqdo ma jeclaa laakiin ruux intuu ilmo dhalo tarbiye waaya mararka qaarkood soo kama fiicneen inuu madhalays noqdo saas maho yani mararka qaarkood ilaahay oo maxaa ii dhiibay buu leeyahay miskiin yani uurka kusoo qaaday aabbo wuu soo rafaaday raashin u keen xaggan yani dhiiggiisa u horayaa hooye aabbo laakiin markuu xumaado maxay dhahayaan ilaahay oo maxaa ii keeno dhahayaan hadayaab la waayo intaa marka sidaa la dhihin soo ma fiicna in wax layskaga ogaado ilmaha mise siday noqdaan bes ayaan arkaynaa ma in wax layskaga ogaado ayaa wanaagsan ilmo maxay ku fiicnaadaan mar haddii saa loo jecel yahay ugu dambaystaan la rabo ruuxii adiga ku dhaxli lahaa inuu noqdo see loo toosinayaa baan dhowr noqdo meesha ka sheegayaa qaybta ugu muhiimsan waxaa weeye hooye iyo aabbo bilowga hore islaamkeena ogtihiin guurkaa leha loo xeradayo gabadhu guurkeeda waa inay si fiican u raadiso wiilkuna guurkiisa si saxa in loo raadiyaa rabaa marka laba ruux oo mid waliba ruuxa uu guursanaya ka fikiray ilaahay wuxuu ka rabaa inay saa isu doortaan iyagoo marka raalli ana inay isdoortaan oon la ysku qasbin iyagoo ruuxa kale ruux walba ceebihiisa iyo wanaagiisa ogyahayna inay isu yimaadaan marka guri raalli iska ah oo labadan isguursanaysa waalidkoodiina talada uu qayb ka ahaa oo labadii reer ee dhalay ay qayb ka ahaayeen aan la isu geynayaa reer cusub waaye marka nabi aadan iyo xaawo cusub oo isguursanaya maho waa iyagii wana moogtahay iyagii oo baatay kolba koob imaanaya waaye labadaa markii isguursatay ee markii hore loo soo xiradayay oo si saxa loogu raadiyey inaysan khaldamin maxaa jira laba ruux oo wada dhaqmaynin haddii la isu guuriyo waa lagu kala guuraa waa lagu kala tagaa ma wada dhaqmi doonaan ayaa haddana waxaa la leeyahay markaad ilmo dhashaan se u ilaalinaysaan waxa ugu horeeya ee laga fikiraayo hooye iyo aabbo isku dhinac u socdo yani ilmaha waxyaalaha dhibaaya maxaa ka mid a hooye iyo aabbo aan isfahamsanayn uu ku dhex jiraa hadday isku qayliyaan isagoo markuu yar yahay ilmaha aada loogu qayliya agtiisa waaba ooyayaa waa mushkilo haddii hortiisa la isku dildilana waaba yaaba haddii mar kasta uu hadlo aamus la yidhaahdo ogdoolo intuu noqdo ayuu dabaal noqon doqon buu noqon caqligaa ka tagaaya waxa ma garanaya ugu dambaysa maxaa jira
markuu kori lahaa baa la celiyay waxay ka mid tahay meel yar lagu riday intuu dheeraan lahaa markii meesha uu ku jiraya haddii sabareedka kala noqdana baab kala way idinka taa aan la warsanayo laakiin waxaan hubaa ilmo iyo hooyo iyo aabbo ku kala dhex jira ilmo hooyo iyo aabbo aan isla noolayn ku dhex nool yani inuusan ilmo weyn noqonaynin waa la hubaa inuusan sharaf yeelanayninna waa la hubaa maxaa jira meeshuu sharafta ka qaadan lahaa baa sharafta isaa ka qaaday marka sharaf ma yeelanayo yani wuxuu noqonayaa ilmo aan fahamsanayn waxa la samaynayo maxaa jira ilmahan adoo kale waaye aabii hooyo maxay wada noolaan laayihiin oo laba guri ugu kala jiraan oo hadday sii wada jooga ay marmar isugu imaanayaan yuu isweydiinayaa jawaabtii marka ma helaayo markaasuu hoos u aadayaa markaasuu ilmo wuxuu arkayaa aabihii iyo hooyadii daa'ima isla qoslayaan isla faraxsan yihiin oo raalli ay kala yihiin ayuu arkay saasuu raalli markaasuu leeyahay adu maxaa si u noqon weyday oo hooyada maxay si u noqon weyday oo aabaha muxuu si u noqon waayay uu isdhaxayaa طبعا هدي لا اسفره يعني طلاق waxa la yiraahdo iyadoo طبعا waa loo yahay طبعا waa intaas kutubaha laga qoray طلاق يعني ilmo aabihi iyo hooyadii isfureen jirada cid ka daaweyn karta malaha saas ku tagaya khalaas yani ilmo marka nus uu noqonayo maxaa jira boqolka darajo kontan hooyada lahayd kontan aabaha lahaa markii la kala tago boqolkii darajo waxba uma soo harayaan marka ruux eberkiisa iska noqonaya wax weyn uma soo harayo qaybta marka koobaad is-afgarashada waalidka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bilowgana uu yidhi rida zawjayn baa isku guursanaya haddii la isfahmi waayana talaaq bay ku dhammaan oo la kala tagaya mar inta u dhaxaysa maxaa la rabaa haddii la joogayo sidii la isku guursay shuruud ahayd in lagu wada joogaa la rabaa oo xuquuqda dumarku leeyihiin la ilaaliyo xuquuqda raggu leeyahay la ilaaliyo sidaasaa marka wiil iyo gabadh sax aad ku dhali saasay marka reero kale kusii noqonayaan qadiyada labaad waxaa weeye ilmuhu markuu dhasho innaga waa ogtihiin dabcan dadkeena wax dhalaa badanaa tacliima maysan yeelanin hadduu midkood leeyahay ka kalaan lahayn ama labaduba maba lahaba hadday labadu leeyihiinna tarbiyo ama barbaarin iyaga la soo mariyey ma jirto sidooday usoo kobceen markay guursanayeen cidna lama talinin sidee ilmo loo koriyaana ruux looga sheekeeya ma jiro haddaan warsano boqolkii 90 ka badan inta meesha fadhida oo la warsado ruuxee looga sheekeeyay ilmaha hadduu u dhasho sida uu ula ciyaari iyo sida uu korinayo iyo sida ugu fiican ma u maleynayo inay soo baxayso boqolkii 5 6 hadday soo baxdo nasiib wanaag waayo طبعا aniga ma soo marin